salaamullaahi calaykum daawadayaal iyo dhegaystayaal soo dhowaada caawa waxaan idiin wadnaa barnaamijyo aad iyo aad u xiiso badan oo shacabka soomaaliyeed in badan oo ka mid ah ka dahsoon hase ahaatee ay tahay in laga dabageeyo. caawa waxaan idiin wadaa horta kow ku bishaaraysta baaqaana gaarsiiya dowladda dhexe baaq ka socda ciidamada xaqudirirka ama macawisley ama gallayr loo yaqaano ee ka dagaalama gobolka hiiraan iyo guud ahaan dalweynaha soomaaliya. tusaale ahaan aniga waxay ila tahay waxa ciidamada macawisleyda gobolka hiiraan quseeyo waxay quseeyaan macawisley meel walbo ay joogaan. waxaan idila wadaagaynaa baaqooda. waxa kaloon idiin wadnaa dagaal khasaare badan dhaliyey kooxda qawaariijta ah ee al-shabaab jab weyn loogu geystay lagana laayay maleeshiyaad fara badan iyo caruur ay soo qaldeen iyo sidoo kale halkaasoo lagu dilay 2 horjooge oo ka tirsan kooxda qawaariijta ah ee al-shabaab. ciidamada macawisleyda ee ku lahaa fariisimo jidka jayga ee kala baro gobolka shabeellada dhexe iyo hiiraan xigane weliba aad u dhaca degmada aadan yabaal ayaa weerar waxa ku soo qaaday kooxda qawaariijta. maalmahan waa is aruursanayeen wax badan oo dabraya ayaa jira. marka ciidamada loo yaqaano macawisleyda ka dagaalama gobolka hiiraan kana soo bilaabay dagaalka xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliya ay leeyihiin ayaa lagu hakiyay xuduudka gobolka shabeellada dhexe sababo la xiriira qabiil iyo qabyaalad waxay Soomaalidu u taqaan iyo ka cararidda laga carariyo fidno cusub oo qabaliyaho ka dhalata. caawase baaq ay aniga si shaqsiya iyagu soo dhiibeen ayaan dowladda dhexe rabnaa inaan gaarsiino. fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaaro waxaan kaa codsanaynaa inaad sii sheer garayso si uu u gaaro walaalaha Soomaaliyeed ee xogtaasu ay ka dahsoon tahay. ciidamada macawisleyda ee ka soo bilaabay dagaalka waqooyiga gobolka hiiraan ama degmada Matabaan ama xuduudka hiiraan dhanka kalena ka soo bilaabay iyo Itoobiya dhankaana ka soo bilaabay degmada Matabaan ilaa iyo socday xuduudka gobolka shabeellada dhexe soona seefgareeyay gobolka hiiraan intiisa badan. ciidamadaas waxaa lagu joojiyey xuduudka gobolka shabeellada dhexe. waxaan rabnaa intaa inaan halkaa uga gudubno baaqi ay dirsadeen nimankaasu iyo cidda uu daaran yahay ee shaqadaa qaba kartana insha allah waad ila wadaagaynaa. laakiin maanta dagaal baa ka dhacay xuduudka gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe. dagaalkaas 3 fariisimood oo ciidamada xaqudirirka ay ku lahaayeen xuduudka gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan ayaa waxa weerar ku soo qaaday qorshaysan kooxda qawaariijta. way ka sii warheleen ciidamada xaqudirirka difaacooday xirteen markii la isku yimidne xabada la isku salaamay. dagaal in muddo socday kadib kooxdii qawaariijta waxaa la raacdeynayay ugu yaraan 30 kilomitir. rag remiyo waxa faraha ku dhigay snipers wada ah ayaa faraha ku dhigay. nimankaana caawa waxaa looga soo noqday degmada aadan yabaal. waxaan rabnaa inaan idila soo intaanan u gudbin raalli ahaada waxaan rabnaa inaan u gudubno khasaaraha inta uu la egyahay. ciidamada xaqudirirka waxaa la sheegay inay 2 nin ka dhaawacantay sidoo kale 1 ninna uu ka dhintay. ciidamada ama kooxda qawaariijta dadka ay soo qaldeen geeridoodu ay 20 kor ka jirto maadaama ay iyadoo loo diyaar garoobay ayagoo iska socda ay ku soo kor dhaceen ciidankii hal baa loo toogtay horta kadibna nin qori la qabsada iyo nin habadii halkuu ku jiray uga bilaabay noqotay. nimankii wax aan la arag oo aan la maqal ayaa ku dhacay.
باقي أي سوفرين أيان إدلا وذاقية هذا والله تاسو بين ما أنا جا أفكي وكل هذا أفكي جم كل هذا مرة ربين عد كودا نبان كاسين أن تندوبو عن السوشيال ميديا لو ذا لكن waxaan rabay shacabka Soomaaliyeed inaan anigu shakhsiya aan u soo gudbiyo waxaan ka hadlaynaa waa wax xaqiiqda ku salaysan hogaamiyaha ciidankaas waliba aaga jidka jayga saddex qaybood kala hayeen jidka jayga qaybta ninka qaabilsan ayaan si toos u leexiyay oo dagaalka ugu xooggan meesha ka dhacay dawladda Soomaaliya iyo madaxda gobolka Hiiraan intaba waxay ka codsadeen nimankaas in fasax loo siiyo in ay weerari karaan ama ay dagaal ku qaadi karaan meel kasta oo ay shabaab joogaan halka Soomaalidu laga yaabo inay wax qabyaaladeyso fidno cusub iyo inta laga ordayo cadawgu nimanka meesha uga imaanayo waa degmada aadan yabaal waa degmada kaliya ay ugu xoogan yihiin halka inay duulaan ka soo qaadaan maalin walba ay dhibaateeyaan dadka deegaanka waxa sababteeda iska lahan isleenahay dawladda dhexe ee Soomaaliya baaqaas aniga laftirkeygu waa sii xoojinaya waxaan leeyahay dawladay degmada aadan yabaal inaad adigu ciidan dawladeed aad u soo dirto iyo inaad u fasaxdaan dadkan macawisleyda ee ayagu isu xilqaamay inay qaranka Soomaaliyeed kaalmeeyaan waxa la idin ka codsanayaa in ama aad fasax u siisaan ama aad degmada aadan yabaal oo qawaariistii ugu waaweyneed ay fadhiyaan adinku ama duqeeyo oo duqeyn markaad ku baabaysaan ciidankiina galiya ama ka daaya ama ugu faataxeeya oo nimankaas inaad ku ogaataan faataxada ugu mara sidoo kale waxa kaloon codsigaas aan ku sii xoojinayaa ama aan leeyahay qof kasta oo Soomaaliya inuu ka qayb qaato sii faafinta iyo yacni cadawgu meeshu kaaga soo duulayo haddii aadan gaari karin ama laga hor istaagan yahay weliga dhibaatadeedu ma dhamaato dawladda Soomaaliya ee Xasan Sheekh oo madaxweynaha ka yahay waxaan ka codsanaynaa in ay ama fasax u siiyaan ama ayba ku garab siiyaan ciidamada xaqu-dirirka ee aagaas ku sugan si aanay ayagana dhibaato ugu soo noqon shabaabna ayna meesha ugu nagaan baaqa aan dawladda u dirayno waa ka annagoo isku duuban haddaan nahay shacabka reer Hiiraan qodobka kale oo aan rabo inaan u soo noqdo dib ugu soo noqdo wax yarna aan ku daro waa qodobka maantay qawaariista raggii laga laayay ee 2 nin oo horjoogayaal ay ku jiraan iyo 19 nin oo kale ayaa la sheegay 22kaas nin ayaa la sheegay geeridooda qawaariistii way kala haadeen degmada aadan yabaalayna galeen access uma haystaan ama umale ama yacni awood umale inay galaan waxay dhaawacaysaa wixii shalay lagu heshiiyey oo dawladda federaalkane maaragtay la gaarsiiyey madaxda gobolka Hiiraan ay ku taliyeen in ciidanka gobolka Hiiraan ka soo dagaalamay ayna lugta gelin gobolka Shabeellada Dhexe si aanay uga imaan fidno ka timaada qabiil sidaa darteed meeshan qabiil ma yaal waxa yaallo waa shabaab iyo dad shacab ay hadda moqokori iyo tardo iyo ceel qooxle iyo eriyadaas 14 sano ayay kor fadhiyeen waxa ka dulqaadayne waa raggii deegaankaas u dhashay oo inta ka baxay isu soo abaabulay dib uga qabtay haddii marka walaalaha reer Shabeellada Dhexe colaad uma intan ku ogahayne wax colaadaho qabiil maamul isdiidan iyo dad isdiidan iyo waa goonideeda laakiin colaad qabiil oo qabiil ah kama dhaxayso laakiin waxa la ilaalinayaa wax badan inay wax qaldamaan ayay madaxda kulli gobolka Hiiraan ay ka baqeen wixii qaldami lahay marka waxay rabaan inay dadna ha u dhinto hadduu doono in meesha la joogo laakiin muddo kale oo la yaab aniga igu noqotay madaxda waxa laga rabay in ay gudbiyaan cabashada ciidamada
in ay gudbiyaan u sheegaan dowladda dhexe yiraahdeen nimankan iyo annagu isma hor fadhi karno laysma hor fadhi karo in lays hor fadhiya waxa ka wanaagsan in la kala baxo oo la kala adkaado oo ama nimankan la buriyo ama nimankan xuduudooda lagu soo celisho dowladduna ay gacan ka geysato sidaa daraaddeed inta ay aadan yabaal fadhiyaan shabaab ha ka yaabin in xuduuddu ama gobolka hiiraan uu seef garoobo haba ka yaabin waxaa loo baahan yahay marka dowladda soomaaliya inay qorshe ula timaado aaggaas si shabaab iyo ciidamada deegaanka ee is hor fadhiyaan aanay isu sii hor fadhin in la kala adkaado waa la yaqaan laakiin maalin walba kuu soo dhuumanayaa intaan joogaa isbitaalan inta ku leeyahay meydkayga intaan maaragtay ku duuganayaa meeshaanan raashinkii kasoo qaadanayaa waa degme ii dhow degmadan waa degmo soomaaliyeed ha loo tixgeliyo bas inay dadka degano dad soomaaliyeed yihiin wixii shabaabna waa shabaab dadka degano waa dad soomaaliyeed dowladdu marka qorshe cad inay ula timaado ayaan ka codsanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu